وهجاك داوديال maamulka cusub ee Donald Trump ayaa durba qaaday tallaabo ka dhan ah dadka xuduudda Mexico iyo Mareykanka ku sugan kadib markii aabkii la isticmaali jiray ee CBP ay hawada ka saareen. haddaba aabkan wuxuu ahaa aab ay isticmaalaan dadka doonaya inay Mareykanka soo galaan inta aysan sharci daro ku soo gelin ayay markaa Mexico yimaadaan. aabkan ayay soo degsadaan, way isdiiwaangeliyaan, halkaas ayayna ballan ka qabsadaan ilaa iyo ballantoodii la gaarana halkaas iyo Mexico ayay joogi jireen. marka ballantoodii la gaarana waddanka ayay si sharci ah ku soo geli jireen. balse maamulka Donald Trump ayaa tallaabo qaaday, waxayna shutdown ka dhigeen ama ay gebi ahaanba khadka ka saareen aabkii la isticmaalayay ee CBP ee markaasi dadka soo galootiga ah ee xuduudda Mexico iyo Mareykanka ka soo gali jiray ay isticmaali jireen. sida aad aragtaan ama aad ka aragtaan qoraalkani, Donald Trump hore ayuu u ballan qaaday in uu waddanka ka celin doono dadka sida sharci darada ku soo gala iyo dadka waddanka ku soo qulqulayaba. tani waxaa la dhihi karaa waa tallaabadii ugu horeysay maamulka Trump uu qaado tan iyo markii maanta xilka loo dhaariyay.